Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Maanta muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sida PicArtist iyo Pixellab loogu daro faraha cusub ama faro cusub loo soo degsado oo loogu soo dhex daro farihii ku jiray kuwa ka bedelan. Okay, dooro marka meesha balasta ah adigoo PicArtist ku dhex jira, kadibna qaybta balasta kor dooro. Add custom use fontiska qaybtan waxaa u akhrisaa si miir leh inaad u akhrisid oo u fahantid laga rabaa. Marka fahantid ama muuqaalkan aad fiirsatid waa samayn kartaa. Okay, Chrome-kana keen kadibna website-kan gal dafont.com. marka dafont marka aad soo gashid marka waxaad samayn kartaa marka inaad faraha la soo degtid. hadda marka waxaad tegaynaa marka qaybta ay ku qoran tahay modern marka soo galno marka meeshaan marka ay far meeshaan ay ku jirtaa oo adiga tii ku qancisa xilli walba u baahan tahay la soo deg, mar walba mid u baahan tahay la soo deg. marka hadda waxaan soo dejinaynaa marka anaga MK little ka mid aan soo dejinaynaa. hadda waan soo download gareynay. website-kana si free uga degaysaa 100% free waaye. okay, marka my files kaaga imaaw kadibna internalka soo gal kadibna download ki gal adiga folderka wax ku soo degsatay oo downloadka kugu soo degay gal. marka downloadka aad gashid marka xaraysaa marka wixii aad soo dejisay magaca ku qornaayeen waxaan u ekaana hadda qaabkaas folderada dahabiga camal u ekaana. okay, midaan soo dejiyay marka midaas waaye. okay, marka hadda wuxuu ku leeyahay marka unzip de folderka hadda wuu xiran yahay waxa lagu talagalay inaysan waxba ka dhex gelin unzip. marka hadaayana meesha wuxuu kugu soo dhaan ku dhahay si miir loo akhri wax walba ee u dambeeyo ku dhahay oo TTF ee u dambeeyo waa farti u baahneed ayada soo rar marka kadibna waxaa soo gashaa marka folderka ee PicArtist ku qoranta oo ku dhex yaala memory-ga ama maskaxda telefoonka. marka folderka PicArtist-ga dhex gashidna waxaa ku dhex ridaysaa wixii aad copy-ga aad ku hayday ama move-ta aad ku waday fonts meesha ku qoran tahay. aniga wax badan hore u soo degsada iyagu dhex jiro. okay, waan ku dhex daray marka ka soo bax oo tag PicArtist-ka. marka PicArtist-ka waxaad doortaa my font kadibna waa kuwana marka wax ay far aan soo degsaday oo dhan meeshaan ugu jiraan 100 xabo la soo deg 100 ka xabo sidoo kale unzip ku samay kadibna waxaad geysataa meeshii aan ku sheegay oo ah PicArtist fontiska kadibna waxa ku noqonaya si free ah ku shaqaysan kartaa waxa far qurux badan ku noqonaya waxa rabtaa ku qori kartaa. okay, sidee ugu dareynaa marka Pixellabka logooyinka kalena waa ku samayn kartaa oo far qurux badan ay noqonaysaa. okay, marka hadda Pixellabka kalena isagana waxaan ku samayn karnaa marka inaan isagana aan far soo gelino wayna fududahay. fartii oo aad u soo degsatay PicArtist-ka u soo degsatay kana ku dhex isticmaali kartaa wax muruq ma lahan. my font saa tagaysaa faraha dhan waa kuwa soo degsaday xagga kale qaybta balasta dooro kadibna waxaad tagtaa marka folderki oo PicArtist-ka tag kadibna fonts meesha ku qoran tahay jaxi intii marka meesha kugu jirto dhan wada dooro wada mark saar ama select all dhaho oo wada saaro calaamadaha kadibna waxaa dhahdaa add selected ku dar wixii aan doortay. hadda marka way kugu wada dooran yihiin. marka waxaan tagnaa marka qaybta fontiski oo fartiyan baa soo dooranayna aan soo dejinay what's ugu hooseysa waad u jeedaa marka hadda farti aan soo dejinay waaye. darba kala xabaad kala soo degi kartaa si free ah. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. halkani waa janaalka Wantage Media.